الله naxariistay waxa magaalada Muqdisho maanta ku geeriyoodo lagu aasay General Cabdulqaadir Cali Diiriye General Subxaanyo oo muddo dheer ka tirsanaan jiray ciidamada asluubta ee Soomaaliya. Generalka ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ku noolaa wadanka Britain iyadoo la sheegay in dhawaan uu boqosho ku tagay magaalada Muqdisho halkaas oo haatan qabrigiisii laga qoday oo lagu aasayba. Haddaba goorsi horeysay waxaan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray General Maxamed Sheekh Umar General Xirsiile oo generalka geeriyooday ay soo wada shaqeeyeen isagoo qabriga ku sugan ayuuna ورمي. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحاصاكي halkii saac ilaa 12 barkii ku geeriyooday gurigiisa ku yaala kaas balbalaare General Cabdulqaadir Cali Diiriye haddaana waxaan kor taaganahay in aan aasno oo saacadan hadda ah ilaahay ha u naxariistaan leenahay ummadda waxaan u sheegaa Soomaaliyeed sarkaal aad u qiimo badan oo wadani ah oo shaqo badan oo aan la malayn karin u soo qabtay ciidanka dalka gaar ahaan ciidanka asluubta marka in aad sidaas idinkuna tacsiyaas ula socotaan Soomaali weyn ayuu ka dhintay ee kama dhiman qoys. General Maxamed waxaad nooga warantaa nin caynkee ayuu ahaa generalka General Cabdulqaadir Cali Diiriye wuxuu ahaa nin aad u furfuran wadani ah jecel ummadda in uu u dhaxeeyo waayo waxaan xasuustaa awalan waxa loo dhiibay hogaankii siyaasadda ciidanka asluubta 73 markii ay ka soo baxeen kulliyadda ka bacdina waxa loo diray Germany asagoo Germany ku maqan oo fasax ka soo qaatay garoonka markuu ka soo degay haddana urur la jiray oo dagaalkii amxaarada aaday ayaa loo dhiibay markuu ka soo noqdana haddana waxa loo celiyay hogaankii siyaasadda in badan uu joogo hogaanka siyaasadda waa laga wareejiyay hogaanka gaadiidka loo dhiibay asagoo hogaanka gaadiidka wali sidii u haya kalsooni badanna ciidanka asluubtu ay ku qabaan talis haday tahay dawladii haday tahay markaa jiday ayaa waxa dhacay furfurankii iyo burburkii dawladii markaa jiday dabcan waxyaabo badan oo uu ka soo shaqeeyay baad noo sheegtay laakiin shaqadiisa gaarka maxay ahayd ciidanima loo tababaray iyo xabsiyada saraakiisha boqorta loo soo tababaray oo kamid ahaa markuu ciidanka asluubta yimidna markaas wixii falsafada socotay moogta dawladii markaa jirtay waxaa la siiyay seminaaro waxaana loo dhiibay hogaankii siyaasadda shaqadiisa oo dhan waxay ahayd siyaasadda iyo gaadiidka iyo dagaalkii 77 intaas uu ka qayb galay muxuu ka bedelay ciidamadii uu madaxda u ahaa iyo hogaankii siyaasadda uu hayay waxaan xasuustaa oo kali ah in meeshii la geeyo ama uu tago Cabdulqaadir afwaahu naas xaquna la yiri oo yiri nabigu kalaanta bini'aadankan dareema inuu wax ka bedelay meelihii uu joogo Allahu naxariistay General Cabdulqaadir maxaa lagu xasuusan doonaa waxaa lagu xasuusan doonaa hogaamin wanaagsan furfurnaan dadka iyo ciidanka dhexdiisa haday sibil tahay iyo haday ciidan tahay nin honest ah oo ahay oo daacada ahaa hadda markii uu geeriyoonay shaqadu hayay maxay ahayd shaqo ma haynin wuxuu joogay dalka Ingiriiska halkaas uu ka yimid wuxuu u yimid booqasho meeshan oo ah in uu u noqdo haddana Ingiriiskiisii dadkiisa iyo ummadii ciidanka xataa soo booqday oo sida ay yihiin iyo siday u dhaqan yihiin oo u yimid ka bacdina inuu noqdaa go'aankiisu ahay waana u socowayso waa kan hadda aan kor taaganahay kaas waxa uu ahaa General Maxamed Sheekh Umar General Xirsiile oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka General Subxaanyo khadka taleefanka goorsi horeysay ugu waramay